asalaamu calaykum soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaa idiin sharxayaa filim soo baxay 2018 waa filim aad u cabsi badan waxaana loogu magac daray Echoes of Fear fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir muuqaalkana like saar mahadsanid filimka waxa uu ku bilaabmay oday qubaysanaya oo si lama filaan ah u maqlay dhawaaq la yaab leh uu ku soo dhawaaday isagoo isku dayaya inuu ogaado dhawaaqaasi la yaabka leh halka uu ka soo baxayo balse noole aan la arkaynin ayaa soo weeraray halkaasna naftiisu ku waayay muuqaalka xiga waxaanu aragnaa gabar lagu magacaabo Alisa oo odaygu awow u yahay waxay la hadashay saaxiibteeda Steve oo u sheegtay in aanay awowgeedu noolayn kadib waxay timid gurigii waxay ogaatay in korontadu ay dinsan tahay habeennimadii iyadoo hurdaysa ayaa albaabka qolkeeda furmay waxay ku baraarugtay dhawaaqa bisadda Alisa waxay shiday tooshka taleefankeedii oo hoos u soo degtay kadib waxay aragtay talaajada oo furan oo ay ku aragtay cunto quruntay ee ku jirta gudaha talaajada maalintii dambe ayadoo qolka awowgeeda hagaajinaysay waxay ka heshay dharkii iyo kabihii awowgeeda xirnaa ka hor inta aanu qubayska aadin Alisa ayadoo nadiifinaysa guriga waxay maqashay intercom yeeraysa intay demisay ay haddana maqashay intercom kale oo ka yeeraysa jikada ka hor intaanay jikada soo gaarinba ay intercom lafteedu isdemisay isla markii haddana waxay maqashay dhawaaq ka soo baxaya saqafka sare ee guriga halkaasi oo ay ka heshay weel ka buuxa buskud oo guracan kadib Alisa saaxiibkeeda Brandon ayaa habeennimadii u yimid waxay riyada ku aragtay nin boorso sita oo guriga soo galaya maalintii xigtay lamaanaha ayaa hagaajinayay jaranjarooyinka jajaban ee guriga hortiisa ku yaalay halkaasi oo Alisa ay kula kulantay nin ay awowgeeda daris ahaayeen oo xanuunsanaa oo la dhaho David wuxuuna ogaaday in guriga loo diyaarinayo iib Alisa ayaa u sheegtay Brandon in ay qorsheynaysay in ay lacagta guriga kala bar siiso hay'adaha samafalka ah ee awowgeeda balse Brandon waxa uu kula taliyay in lacagta oo dhan ay haysato isagoo u sheegaya in aabaheeda uu iibin lahaa guriga oo uu lacagta siin lahaa hay'adaha samafalka ee awowgeeda kama yeelin inay iibiso guriga sababtoo ah waxa uu rabay inay Alisa sii haysato guriga kadib Brandon waa uu baxay wuxuu u sheegay inuu soo noqon doono usbuuca dambe kadib markii Alisa qubayska aaday waxay aragtay biyihii inay isku bedeleen kuwa wasakh ah iyo madow ah waxay isku dayday inay wasakhda ka soo saarto biyo mareenka kadibna waxay maqashay dhawaaq la yaab leh ee ku soo socda intay timaheeda shallaynaysay ayaa waxay aragtay sawir hore ee ku dhex jira weelka qashinka ee saaran miiska u dhow sariirta waxay aragtay in wejiga mid ka mid ah wiilasha sawirka ka muuqda in laga titiray markaas kadib waxay wacday tuubiste si uu u eego tuubada weyn ee uu nadiifiyo tuubistihii waxa uu ka helay timo madow oo dhaadheer oo gudaha ku jira halka Alisa ay aaday si ay qashinka u daadiso kadib tuubistihii waxa uu maqlay cod cabsi leh oo ka soo baxaya tuubada weyn kadib Alisa way soo laabatay tuubistihii waxa uu u sheegay inuu hagaajiyay tuubadii kadib Alisa waxay la hadashay Steve oo u sheegtay inay dhawaan imaan doonto Brandon ayaa soo laabtay waxayna labada qabanqaabiyeen xaflad ay ku casuumayeen dhammaan jaarkooda Alisa iyo David ayaa isla hadlayay midba midka kale wareystay kadib waxay u sheegtay sababta dhimashada degdega ah ee awowgeeda inay tahay wadna xanuun intaas kadib Alisa waxay aragtay hoos cabsi leh oo wax yar kadib qarsoomay habeenkaas Alisa waxay ku soo toostay dhawaaqa cabsi leh ee ka imaanaya banaanka qolkeeda waxay isku dayday inay toosiso Brandon balse kaligeeda ay banaanka u baxday kadib markii ay soo qaadatay kubadda dhawaaqa bixinaysay waxay maqashay dhawaaq ka soo baxaya daaqadda oo haddana u muuqda inuu qof taagan yahay haddana nalka ayaa si lama filaan ah ku damay kadib waxaana la tusay hoos nin ah oo ku soconaya daaqadda banaankeeda markii ay Alisa dibadda u soo baxday waxaa si lama filaan ah u soo weeraray noole aan la arkaynin aad bay u argagaxday oo aad bay uga naxday kadibna waxaa soo kacay Brandon oo hareeraha eegay oo u sheegay waxa laga yaabaa inay ka cabsatay dabaysha maalinta xigta kadib markii uu Brandon baxay Alisa oo alaabtii awowgeeda soo xirxiraysay waxay heshay daawooyin loogu talagalay burooyinka maskaxda ee ku jira qolka jikada dhanka kale Steve ayaa soo gashay kadibna waxay ranjiyeenaysay darbiyada halka Alisa ay ka heshay gogol iyo barkin saqafka dushiisa kadib waxay galeen saqafka sare waxayna ka heleen gogol iyo barkin kadib Steve ayaa sheegtay inuu jiro shaydaan oo ku nool guriga Alisa ayaa tusisay daawadii uu ka dhaxelay alaabta awowgeeda oo ay sheegtay in aysan weligeeda ogeyn in uu buro maskaxda ku dhacay kadib waxay dareemeen dhimashada awowgeeda ka hor inay wax dhaceen muuqaalka soo socda Alisa waxay Steve
geysay tuubada weyn ee qolka hoostiisa ku taalay, waxayna u sheegtay inay ku jiraan timo madmadow oo dhaadheer ah, laakiin waxay ogaatay in wasakha iyo timihii madmadoobaa ay meesha oolin. kadib markii Steve baxday, Alyssa waxay maqashay shanqar la yaab leh oo waxaa soo weeraray noole argagax leh. kadib Steve waxay soo laabatay iyadoo Alyssa naxsan, waxayna arkeen kabtii dhoobada lahayd oo ay qaybta hoose ku arkeen. kadib markii Alyssa Steve u sheegtay inay soo weerareen qaar ka mid ah noolaha halista badan, Steve ayaa sheegtay inuu jiro noole argagax leh oo aad u xun oo guriga ku dhex nool, xitaa ay u badan tahay in awowgeedii uu isku dayay inuu ogaado noolahaasi. habeenkaasi waxay go'aansadeen inay seexdaan qolka awowgeeda si ay u ogaadaan waxa guriga ku dhex nool. kadib iyada oo Alyssa iyo Steve ay hurdayaan ayaa Alyssa qaylo ku soo baraarugtay oo bannaanka u soo baxday. waxay heshay sawirkii carruurnimada ee awowgeeda oo miiska saaran oo ay ka naxday, si degdeg ah ay qolkii ugu soo laabtay. kadib Alyssa waxay aragtay riyo. Alyssa waxay aaminsan tahay in wax kasta oo ay aragtay aanay ahayn riyo oo keliya, balse ay xaqiiqo tahay. iyada oo u sheegtay Steve in ay saqdii dhexe ee habeennimo kacday oo ay ka naxday arrin naxdin leh. gabdhuhu waxay bedeleen dhammaan qufuladii guriga ayagoo iska ilaalinaya noolahaasi. kadib Steve way iska tagtay. Alyssa iyada oo keligeeda guriga joogta mar kale waxay maqashay shanqar oo waxay u soo dhaqaaqday qolkii awowgeeda, halkaas oo ay ka heshay xasuus qorkii awowgeeda ee ku jiray qaanada gadaashiisa. mar ay qolka ka soo baxday ayay aragtay naag sida dabeel oo kale. kadib waxaa ka soo hor muuqatay ruuxaan aad u cabsi badan. cabsi darteeda ayay dhulka ku dhacday. kadib Alyssa ayaa soo qaadatay boorsadeedii oo ka tagtay guriga, waxayna degtay hotel. kadib waxay u yeertay Brandon, kaas oo aan aaminsanayn in noole halis ah ku dhex nool guriga awowgeeda. markaasay akhriday buugga xasuus qorka ah ee awowgeeda iska lahaa. awowgeeda waxa uu ogaaday inuu sidoo kale waxyaabo la yaab leh ku arkay gurigaasi, laakiin dhakhtarkiisii ayaa u sheegay in dhammaan waxa uu arkayo ay sabab u tahay burada maskaxda, taas oo u keentay inuu wax qaldan arko. kadib Alyssa waxaa soo weerartay isla ruuxaantii mar kale oo ay la baxday. kadib fariin ayay u reebtay iyada oo ku qortay muraayadda qolka hoose. Alyssa waxay ogaatay inay qasab tahay inuu jiro noole qarsoon oo ku jira qolka hoose ee guriga, sidaas darteed waxay si degdeg ah uga soo baxday hoteelka. waxay wacday Steve waxayna u sheegtay inay u baahan tahay inay ogaato waxa ku dhacay awowgeeda, iyada oo ka shakisan in laga yaabo inuu soo weeraray isla ruuxaantii ay guriga ku aragtay. Alyssa waxay ku dhex seexatay waddada. subaxdii waxay soo gaartay gurigeedii. kadib waxay aragtay warqad ku dheggan albaabka gurigeeda oo ku qoran inuu qof la la'san yahay. markay warqadda u dhowaatay waxay ogaatay inay hooyadeeda tahay. isla markaa ayay qolka hoose gashay, waxayna la kulantay xaraami oo si degdeg ah u cararaya. waxay daba socotay xaraamigii waxa uu daaha ka qaaday in buuq iyo sawaaxan la yaab leh uu ka maqlay guriga oo ka soo baxaya tubooyinka. muuqaalkii xigay, Steve waxay wacday Alyssa oo ku amartay inay albaabada guriga oo dhan ay iska xirto ilaa ay ka imaanayso. kadib Alyssa waxay akhriday xasuus qorka awowgeeda oo ay ogaatay inuu dambiile ka yahay waxa uu horay u sameeyey oo uu rabay inuu Alyssa ka iibiyo guriga habaaran. kadib Alyssa waxay aaday qolkii awowgeeda oo ay isku diyaarisay inay qubaysato, balse biyaha musqusha ayaa madoobaaday. kadib waxaa ka soo muuqatay ruuxaantii hooyadeeda iyada oo dib u soo celinaysa sida ay u dhammaatay. kadib waxaanu aragnaa in ay Alyssa heshay albaab yar oo gudaha u gashay maqsiinka. waxa ay heshay sanduuq ay ku jiraan maaskaro xunxun oo ay la socdaan dhowr rinji oo cidyaha ah. waxay soo qaadatay sanduuqii oo ay sii dhex heshay cidyo goglan oo gudaha ku jira. kadib waxaa timid Steve. hablihii waxay ogaadeen in sawirka gidaarka lagu sawiray rinjiyada cidyaha. kadib waxay go'aansadeen inay galaan qolka maqsiinka, laakiin Alyssa waxay maqashay shanqar ka soo baxaya gidaarka gudihiisa. kadib gidaarkii ayay jebisay, waxayna heshay albaab ka furmaya qaybta kale ee maqsiinka, halkaasi oo ay ka heshay boorso, waana boorsadii ay ku aragtay riyadeeda. Steve waxay sheegtay in Alyssa awowgeeda ay tahay inuu isku dayay inuu wax ka raadiyo qolka maqsiinka. gabdhihii waxay bilaabeen inay meesha qodaan, laakiin waxay ogaadeen meesha inay tahay dhagax adag. kadibna Alyssa waxay maqashay dhawaaqyo la yaab leh oo ka imaanaya gudaha tubooyinka ee ku dhex jira gidaarada. waxay go'aansatay inay jebiso. dhanka kale, nin maaskaro xun wata ayaa nala tusay, kaasoo taleefanka gacanta dhigay musqusha. muuqaalkii xigay, Alyssa ayaa jebisay derbiga. wixii ka dambeeyeyna waxay aragtay bisado badan oo dhintay oo ku dhex jiraan bacaha qashinka. aad ayay uga naxday markii ay ka heshay madaxa bini'aadamka mid ka mid ah boorsooyinka. Steve iyadoo argagaxsan ayay isku dayday inay hesho anteeno oo ay
ka wacdo booliiska. Alisa sidoo kale waxay isku dayday inay wacdo booliiska, laakiin ma aysan helin wax signal ah. isla markiiba waxay isku dayday inay ka baxdo qolka maqsiinka. kadib waxaa soo weerartay ruuxaantii hooyadeeda oo siinaysa aragti, waxayna daaha ka qaaday in awowgii Alisa iyo David ay ayada ka faa'iideysteen. kadib Alisa ayaa soo baxday oo waxay aragtay Steve oo jiifta oo miyir beeshay oo dhulka taalo. kadib David ayaa soo saaray bahasha oksijiinta ah oo uu ku xiray Alisa. kadibna Alisa way mirdeersoontay. David ayaa habluhu soo geliyay qolka hoose ee guriga. ruuxaanta Alisa hooyadeed ayaa mar kale soo muuqatay oo iska dhigtay sida awowgii Alisa oo kale, waxayna sheegtay in Alisa awowgeeda iyo David ay u kala gooyeen oo ay alaabteedii ugu qariyeen qaybta hoose ee guriga. David ayaa u kaxeeyay qolka hoose, halkaasi oo uu daaha ka qaaday in Alisa awowgeeda uu ahaa in adeerkii. kadib wuxuu irbad ku suray gacanta Steve si uu dhiig uga shubo. kadib Alisa waxay isku dayday inay sii baxsato, balse David waxa uu rabay in uu isku dayo inuu ka faa'iideysto iyada. kadib albaabka waxaa ka soo galay Brandon. David ayaa ku yaacay si uu uga hortago, ugu dambeyntiina wuu u dhameeyey. halka ay hablihii iska fureen oo ay iska dhigeen xeriga, waxayna u diyaar garoobeen inay weeraraan oo ciijiyaan isaga. markuu soo galay Alisa way weerartay, waxay ku ceejisay tuubada. David isna waxa uu isku dayay inuu ku weeraro giraangaraha. nasiib wanaag, ugu dambeyntii Alisa way u dhameysay iyadoo daawanaysa iftiinka hooyadeed oo muujinaysa inay hadda nabad ku sugan tahay maadaama ay u dhameysay dilaaga. muuqaalka ugu dambeeya waxaan ku aragnaa Alisa iyo Steve oo ku sugan xeebta badda. Alisa waxay diyaarisay qof guriga u iibiya. Steve ayaa u sheegtay in guriga uu yahay guri lacnadaysan, wax wanaagsanna aan lagu arkin gurigaas. laakiin Alisa ayaa sheegtay in awowgeeda uu ku dhintay gurigaas, iyada ay ka dhigan tahay inay tahay waxa keliya ee wanaagsan ee ka dhacay gurigaasi. filimkana halkaasi ayuu ku dhammaaday. waad ku mahadsan tahay daawashada quruxda badan. fadlan ha ilaabin inaad nagu soo biirto haddii aad nagu cusub tahay. sidoo kale muuqaalka like saar, asxaabtaadana u sheer garee. mahadsanid.